barnaamijkeena caawa waa barnaamij muhiim ah wuxuuna ku saabsan yahay mawduuca la yidhaahdo masayr. laba qaybood buu u kala baxaa. masayrka ilmaha ku dhaca siduu ku yimaado iyo actually waxaan odhan karaa saddex qaybood. masayrkaasi siduu ku dhasho kow. labo, ilmaha si looga ilaaliyo masayrka sida looga ilaaliyo waa qodobka labaad aan ka hadlayno. qodobka saddexaad aan ka hadlaynaa wuxuu yahay ilmaha sida looga ilaaliyo, macnaha waxaan ka wadaa qodobka labaad sida loogu diyaariyo in ilmo nuunaa dhalanayo si aan masayr ugu dhicin, uu raalli uga noqdo, una fahmo ilmaha yaroo soo kordhaya oo dhalanaya. qodobka saddexaad wuxuu yahay haddii masayrku ilmaha ku dhaco waa khasab. masayrku wax la hor istaagi karo maaha. hadduu ku dhaco qaabka looga saaro ilmaha oo loogu dabawado inuusan nuunaha walaalkiisa oo dhashay ama walaashiisa uusan uga masayrin loona ogolaysiiyo. saddexdaa qodob oo muhiimka ah buu ku saabsan yahay. si hoose oo qoto dheer baana insha allah u lafaguri doonaa. barnaamijku 2 ilaa 3 qof ka badan su'aalaha ma qaadan doono oo xaaladdu haysato masayrka ah amase iyagu hadda u diyaar garoobaya, ilmahooda u diyaarinaya inuusan masayr kaga dhicin. 2 ilaa 3 ugu badnaan baan qaadanaynaa, kumana daahi doono haddii la idmo. waxa weeye masayrka waxaan odhan karaa waa dhibaatooyinka kuwa ugu horeeya oo calaamadaha ah oo muuqda oo ilmaha ku dhaca, dhibaatana ku aweyn noloshiisa. intuu yar yahayna dhib ku ah, marka uu weynaado oo qof weyn noqdana sidoo kaleetana wuxuu ku yahay dhib. marka waa arrin muhiim ah waalidka, labada waalidba, khaasatan hooyadu inay garanayso masayrka ayaa aad iyo aad u wanaagsan oo maaragtay loo baahan yahay. marka horeeto waxyaabo badan baa ilmuhu u baahan yahay in laga ilaaliyo ilaa uu waktiga uu ka calool galo ilaa iyo 7 sano oo horeeto. waxyaabo fara badan ayaa ilmuhu wuxuu rabaa in hooyada iyo aabuhuba ay aqoon u leeyihiin oo ay ka ilaaliyaan. waa muhiim arrintaas, waayo waxyaabahaasi ilmaha waxay u keenaan dhibaatooyin aad u fara badan oo maskaxiyan ah. sidoo kaleeto dhibaatooyinka maskaxiyanka ayaa ilmaha waxay u keenaan in dib u dhac dhanka horumarka uu ilmaha ku dhaco. masayrkuna waa waxyaabaha kow ka ah oo ilmaha ku rida inuu dib u dhac ku dhaco oo dib u dhac yimaado dhanka horumarka luuqadda, korriimada, waxbarashada, waxyaabahaas oo dhan inuu maaragtay uu ka hor istaago. dad baa waxay soo qorayaan qadka waadix maaha, si fiican laguma maqlo, maxaa ka jira? anagu si wanaagsan baan u maqlnaa walaalo marka waa dhankooda, aniga xaggayga maaha. mahadsantahay ubax. marka waxaa la rabaa marka in labada waalidba ay arrimahan ku baraarugsan yihiin. masayrku wuxuu ka mid yahay wax loo yaqaano traumooyinka ilmaha ku dhaca. trauma macnaheedu waa erey laatiina, macnaheedu waxa ay tahay waxyaabo badan baa loo adeegsadaa dhanka caafimaadka ereyga traumo. traumo waa wax dhacdo ah oo qadiim ah oo dhacdo weyn ah oo qofka maskaxdiisa ku harta. waxaan odhan karaa waa dhacdo weyn ama waa raadreeb. soomaaliga waxaan odhan karaa raadreeb weeye. badanaa dhacdooyinkaasi waxay u badan yihiin dhacdooyin fool xun oo qofku uu qaato, nolosha dhankeeda ka qaato, ama ilma ha ahaado ama qof weyn ha ahaado, khibrad fool xun oo dhanka nolosha ku aadan ayuu maaragtay qofku uu ka qaadaa traumada. dagaalka oo kaleeto ummad ay dhex marta, ciidamada oo kaleeto askarta xataa uu ku dhacaa. waa loo waashaa. dhibaatooyin badan oo maaragtay xanuuno oo nafsaaniya buu keenaa. masayrka dumarku waa yaqaanin laftigiisa, wuxuu ka mid yahay waxyaabaha oo qalbiga qofka dhaawaca oo qofku uu gaaro heer maaragtay maskaxdiisu ku khalkhasho. ilmaha oon marka faham u lahayn waxyaabaha traumooyinka la yidhaahdo ama dhacdooyinka foosha xun waxa weeye dhibaato u keena. ilmaha marka nuunaha dhasha wuxuu ku yahay traumo buu ku yahay. isaga dhinaciisa wuxuu u arkaa dhacdo fool xun oo guriga kusoo siyaaday. wuxuu u arkaa ilmahaas dhashay caqabad. wuxuu u arkaa dhibaato. wuxuu u arkaa mashaakil.
wuuna ka gilgishaa siyaalo badan buuna ilmaha uga soo ifbaxaa oo uga muuqdaa ilmo isagoo aamusan ayaad ka dareemaysaa laakiin naftiisa ayuu gudaha wuxuu ka dareemayaa murugo waxaadna ka arkaysaa inuu iska kaaxiray inuusan luuqadii baranayn inuu jacaylkiisii uu ku jeclaa uu yaraa inuu goonni u baxayo inuu wax kharibayo inuu qalqaali noqonayo qaabkaasay ugu soo baxaysaa ilmana wuxuu noqonayaa ilmo aamusan oo aktifnimadii ku jirtay oo dhan ayaa baaba'aysa ilmo dhinaca kaleeto wuxuu samaynayaa inuu wixii ka dagaalamo oo ilmaha yaroo soo kordhay maaragtay uu la dagaalamo intaynaan marka masayrka iyo waxyaabaha keena aynaanu gelin waxaan rabnaa horta bal marka horeeto inaan bilowga kasoo bilowno ilmahan caloosha gelaya caafimaad qabkiisa sida uu u arko cilmigu iyo diintu sida ay u arkaaneen qaabka loo ilaalinayo oo loo dhowraayo diinteennu waxaa la socotaan ilmuhu markuu calool gelayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sunneeyey ilmuhu markuu calool gelayo in bisinka loo qabto arrintaasi waa muhim waad maqasheen wax badan baa dadka ka maqashaan ilmahan waa ilmo akhlaaq xuno waa ilmo aan bisinka loo qaban markuu calool gelayo bisinka loo qaban waa sunnadu sida ay tahay marka uu dhashana waxa weeye waxa laga naarayaa shaydaanka quraankana waa ku taala allahumma inni a'uudu bika اللهم إني أعوذ بك سورة مريم وذريتها وأيضا له مريم هو يده مريم وأيضا له عيسى مركا أي شيطان كنا من الشيطان الرجيم شيطان كأيان إله كامل إنجلنا يا قبردن يو ذرية ديده بقى أو عن كامل إنجلنا يا شيطان المهم مركب النبي عليه الصلاة والسلام وحوج دي إن دكت اللي جا قدمه وآذان لغو سمايه aadaankaas marka aadaankana wuxuu sidoo kale axaadiis kale ku sheegay adanku inuu yahay shaydaanku inuu ka cararo adanka markii iimaanku masaajidka ku dhufto ama guriga laga adamo waxa shaydaana waa cararaa waa bax muu arki karo adanka sidaa aawadeed marka ilmuhu markuu dhashana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo jideeyey in lagu adamo bisinka marka qabashadiisa waa wax fudud dadka qaarkiis waxay yidhaahdaan dee annagoo da sariir baanba ku urdeynay oo maaragtay yaaba xasuusanaya reer miyiga hore waxay yidhahdaan marka horena ka tartuuqsani erayba isticmaalaan marka dambena ka tabaryiri marka horena tartuuqdu waa degdeg baa igu jiro oo dee nin wax boobsiinayaan marka dambeetana waxa weeye ka tabaryiri oo dee maba aan xasuusan haddii la ilaawo bis waxaa la dhahayaa bismillaahi awalahu wa aakhiruhu sida maaragtay cuntada oo kaleeto marka la ilaawo laakiin bishardi waxaa la rabaa inaan la ilaawin oo ilmaha caloolgalkiisa bisinka loo qabto siday hooyadu ku garanaysaa marka caloolgalka ilmaha waxay ku garanaysaa muddada hooyadu ay dhiigga ka mayrato caadada ay ka mayrato oo isdaahiriso badanaa uurku wuxuu dhacaa sida saynisku sheegayo 5 maalmood ama 6 maalmood bay masalan uu ka socotay caadadu ay ku jirtay maalintii 6aad bay daahirsatay maalinta 7aad weli weeye ugaxdu ma soo bixin ilmuhu ma caloolgali karo maalinta 8aad adu maalinta 9aad ka bilow maalinta caadada ay ka meertay 3 beri ku dar 9 beri 10 beri markaas waxa bilowmaya 7 cisho ayaa waxa uu bilowmaysa 4 ilaa 7 cisho oo waxa bilowmaysa ugaxda hooyadu diyaar tahay oo ay uur qaadi karto ayaa bilowmaya kadib markay 7da beri dhamaato misna waxay gelaysaa hooyadii recycle kale wareeg kaleeto oo waxa uu yahay inay isu diyaariso caado burburka soo socda caadaduna badanaa waa ugax burburtay weeye ayay hooyadu gelaysaa recycle kale ay gelaysaa hadda aaba baa jira xataa maaragtay qofka la soo degi karo oo hooyadu ogaan karto taariikhda gelinaysaa ugu horeysay oo caadada kugu dhacday isagaa kuu sheegaya waqti caadadu imaanaysa kuu sheegi waqtiga uurka la qaadi karo jaanisku uu jirana wuu kuu sheegaya muddada marka 7da beri ah oo ilmuhu uu calool galo ayaa waxaa la rabaa haddii goortaas la sameeyo galmo in ilmihii bisinka loo qabto mar kasta oo la samaynayo weliba hooyada xusuus fiican hooyada iyo aabuhu labaduba waa inay qabtaan haddii midkood qabtana waa okay inay maaragtay ay bismillah tiraahdo goorta hawsha bilowmayso haddii ay ilowdana bismillaahi waa awala waa akhiro ujeedka laga leeyahay marka maxay tahay ilmahan si uu ilmo saciida u noqdo in magaca ilaahay uu ku calool galo oo lagu bilaabo sida gowraca oo kale goorta in hilibka xalaashanayno oo gowracanayno aynu bisinka ugu qabanno ayaa loogu qabanaya waxyaabaha waxaan idinku sheegayaa waxa ay tahay meelaha ilmaha fasaadku ka soo galo ama shartu ka soo gasho si uu ilmo wanaagsan saciida qabow ahludiina uu kuugu noqdo inaad marka horeeto aad ku baraarugsan tahay oo aqoon u leedahay oo aad garanayso inaad xirkii soo samayso oo maaragtay
xirsi inaad soo samayso oo ilmihii usoo xirsi xirtay oo sidii saxda ahayd aad soo samaysay ayaan uga gal leeyahay. Okay, marka ilmaha marka caloolgalkiisa khatab ma aha marka intercourse uu socdo ama galmadu ay socoto. dadka badankii waxay u haystaan marka inay hooyadu dumarku u haystaan inay uurka qaadeen. uurku markaa ma dhici karo. wuxuu dhici karaa maalin kadib 24 saac kadib ayaa ugaxdaas iyo isbeermadii ninku ay ishaleeli karaan oo kulmi karaan. waqtiga ay wax dhacayaan badanaa ma dhacdo, sababtoo ah isbeermadu sida lulumadoo kaleeto weeye. waxay leedahay dabadamo ay ku dabaalato, madax xoreetoo buuran. ilaahay subxaana wa tacaala wuu ugu talagalay. ninka waxaa kasoo baxaysa ilaa milyan baa kasoo baxaya. iska dhex joogta in tallaalkii ilmuhu uu dhaco. way la socotaa soo maa siduu iga gogo'aya ma lay maqlaan. codka ma gogo'ayaan? isuga bluetooth baan isticmaalayaan iska fujiye. hadda caadi baa tahay, waa lagu maqlayaa. bluetooth-ka keenaya waan jaraya isuga. nin baa ku jira, nin baan codkiisa maqlay. hadda waa caadi sooma kaleer wey ya. hadda si fiican lagu maqlaa ustaadi. maasha allah. waxa marka dhici karta habeenkii hadday wax dhaceen, maalinimada hooyadoo meelaha iska fadhida ama huruda ama weel dhaqanaysa, in ilmihii barankiisi koowaad uu dhaco. kadib markaas iyagoo iswata ugaxdii oo gudaheeda ay ku jirto madaxii yaraayo isbeermada ayaa markaa minka fariisanaya. haddii uu laba yahay, mataanuhu waxay ku yimaadaan, waxaa dhici karta ugaxdaas inay u soo dheereeyaan oo u soo tartamaan. waa tartan, sida adduunka tartan ummadda uga dhexeeyo ayaa iyagana tartan uga dhexeeya. kuwa kuwaaliga tiga fiican, tayada leh, dheereeya ayaa ugaxda aadaya baynu nidhi, oo raadsanaya, u hormaraya. inta kale hooyadu reject bay ku dhufanaysaa. waxaa diidaya difaaceeda jirka, immune systemkeedaa jiidaya, bannaankayna uga soo baxayaan. hal xabo ama laba xabo hadday markaas mataana yeelanayso ayaa la sii deynayaa ugaxda aadaya. hadday hal mar marka laba wada gasho hal ugaxa, ugaxdaasi labadii bay u kala go'aysaa. waa meesha ay ka samaysmaan ilmaha mataanaha ah oo la yidhaahdo waa identical, aadka isugu eg meesha ay ka samaysmaan weye. waa hal ugax oo ay kala gooyeen laba isbeermo oo ninka ka yimi ayaa u kala go'aya. haddii laba ugaxood hooyada ka soo baxeen oo taya leh, iyaga laftigooda cabir baa laga rabaa, tayaa laga rabaa, quality baa laga rabaa. kuwa ugu fiican ayaa iyaga laftigooda soo baxaya oo hal ama laba ah. haddii laba xabo oo ugaxa ay soo baxday oo laba isbeerma ay u kala tartamaan, labadaasi waxay noqonayaan iyaguna mataano. mataanahaasina waxay noqonayaan mataano muuqaalka kala duwan. soo mucjiso maaha? ayay noqonayaan, sababtoo laba ugxamood oo kala duwan ayay maaragtay ka yimaadeen oo DNA-doodu kala duwan tahay ama chromosomeskodu uu kala duwan yahay. ninka waxa ka imaanaya 23 chromosome ayaa isbeermadiisu ka samaysan tahay. hooyadana waxay ka samaysan tahay 23, waa 46. bal fiiri cadaaladda ilaahay wuu u qaybiyey. 23 iyo 23 baa kulmaya, 46 chromosome baa la yidhahdaa. hadduu hal ka dhiman yahay dhinac ka mida dhinacyada, dhanka hooyada ama dhanka aabbaha, ama laba ka dhiman tahay, oo masalan hooyada ay 22 meesha 23 laga rabay 22 ay ugaxdaasi wadato oo chromosomisa, ilmahaasi wuxuu noqonayaa ilmo curyaana oo wax si ka yihiin.
ayuu noqonaya ilmo dhamaysa ma noqonayo sida xanuunadan la yiraahdo down syndrome-ka iyo caruurta wajiyadoodu isu og yihiin oo Soomaalida xoogaa maxay dhaandaan iyo waxaas ay yiraahdaan ama madax kuti iyo waxbay ku tilmaamaan ayuu noqonayaa ilmo xoogaa kala dhiman buu noqonayaa waa inuu buuxo oo 23 iyo 23 iyo 46daas waa inuu noqdo waxyaabaha detailska oo hoose waxaan u galayaa bacrimiskaasi markuu dhaco bisha ugu horeysa hooyadu waxba ma dareemayso mararka qaarkood waxa dhici karta dhiig yar inuu ka yimaado ay dareento 5 beri ama 7 beri kadib bacranku markuu dhacay dhiig yar oo khafiif inuu ka yimaado kadibna ay weydo dhiigi halka ku weydo waa dadka qaarkiisna ma balaha waxba ma dareemaan bisha ugu horeysa wax walaca ma jiro wax mushkila ah hooyadu ma qabto maraliya markay badana hooyooyinka Soomaalidu ay testiga iska qaadaan ama bil yihiin ama 2 bilood yihiin oo waqtigii kale caadada la gaaro laakiin caadadii imaan weydo ama wax yar oo dhiiga ay aragto oo la dhaafto ayaa badana goorta loo sheego badana waa iska psychology ayaa dumarka Soomaalidu waxay dareemaan walaca inay maaragtay haweentu ay walacdo oo matag iyo cuntadii u soo urto waxyaabahan marka la xiriira walaca laftigiisu waa ilaalin arrinteena hadda waxay ku socotaa ilmaha in laga ilaaliyo dhacdo fool xun inuu la kulmo dhacdada foosha xun ilaalinteedu intaynaan masayrka u gelin waxay ka soo bilaabanaysaa uurka ilmuhu markuu calool galay ayay ka soo bilaabanaysaa inay hooyadu caafimaadkeeda ilaaliso cuntadeeda ilaaliso aabuhuna sidoo kale ninka hooyada qabaa uu hooyada dhowro oo ilaaliyo talaalkaas marka uu dhaco oo ilmihii bacramo oo hooyadii uurkii la xaqiijiyo wixii intaa ka dameeya waxay ilaalinaysaa inay isticmaasho fitamiinadeeda waxay ilaalinaysaa birtan feerada la yiraahdo oo dhiiga cas ku shaqo leh waxay ilaalinaysaa cuntooyinkeeda wixii u macaan bay samaysanaysaa way isdhowraysaa way nasanaysaa way lugaynaysaa oo maaragtay waxay soo qaadanaysaa hawada waxay ku dadaalaysaa maadaama ay 2 qof noqotay inay tayada caafimaadkeeda iyo maskaxdeeda niyadeedaba ay kor u qaado waxay iska ilaalinaysaa buuqa faraha badan waayo kaligeed maaha aabuhuna sidoo kale waa inuu ka ilaaliyo waa inuu qaylada ka ilaaliyo waa inuu stresska ka ilaaliyo waa inuu buuqa ka ilaaliyo waa inuu muranka ka ilaaliyo waa inuu hadalka dhib kale ka ilaaliyo waa inuu markaas bilaabo inuu qaabku ula tacaamuli jiray qaab aan ahayn iyada laftigeeda waxa la rabaa muddadaas 9 bilowda inay isdhowrto hadday arrin maaragtay ninkeeda ka leedahay wixii xanaaq keeni kara oo dhan ama wixii problem u keeni kara ama negative u keeni kara oo dhan inay iska dhowrto maxaa sidaa loo samaynayaa wax kasta oo hooyadu dareento ilmaha waa u gudbaaya